mahadnaqayaa dhammaan ardayda macallimiinta iyo intii waxba meesha joogta. intaa ka bacdi waxaan maanta ku faraxsanahay inaan noqdo musharrax u sharaxan inaan noqdo guddiga ardayda ama guddoomiyaha ardayda anigoo ka bilaabaya magacayguna uu yahay maxamed khaliif cismaan kuna magac dheer khaliifa haftar. intaa ka bacdi waxaan leeyahay waxaan rajeynayaa inaan soo bixi doono oo sidii khayro inoo noqon doonto oo aan isla wada shaqayn doono haddii aan soo baxo. musharaxiin kale way Stand by. meesha la imaaday oo aan rajeynayo inaan soo jeedin doono inay qodobkii koowaad aan halka usii istaagay aan ka hadli doono. qodobka koowaad waxa weeye codsiga ardayda in ay ardaydu ama codsi haddii aan anigu guddoomiye noqdo ama aan usoo intaa kasoo baxo aan codsiga ardayda u fulin doono arday walba ama fasal walba aan u samayn doono qof waan kala hadla ama aan kala xisaabtamo oo anagu leebadeena isla wada hadli doono codsigeedana aan la fulin doono. qodobka labaad waa nashaadaadka oo sida isboortiga barnaamijka idaacadda isboortiga ay noo noqon doonto fasal walba in waa leeyahay qof kastan waa ama qof lagala hadli doono isboortiga. qodobka labaad waa barnaamijka idaacadda oo doonaysa kul waa hadli doonto luqadda Soomaaliga sida luqadda Ingiriiska luqadda Carabiga sidoo kale laga hadli doono. qodobka saddexaad wuxuu noo noqon doonaa maxaabiinta iskuulka oo in hagaajin iskuulkeena waxaa hadda dhibaatooyin badan baa ka muuqda sida kuraasta inay naga jabtay sabtitooyinku ay badankooda ay jajaban yihiin fasalada qaarkoodna uusan cag dhignayn oo ciid iyo waxaa yihiin. qodobka ugu dambeeya oo afraad aan ka hadli doono waa dhaqamada shuruucda iskuulka in iskuulku shuruucda loo soo saaro ama maamul u soo saaro ama macallimiinta u soo saarto in lagu dhaqmi doono oo si khayr inoogu dhammaan doonto. marka waxaa qodobadaas inta afartaa qodob aan ka hadlay waxaa aan fulin doonaa markii ama lay doorto baan rajey doonaa insha allah biidnillahi kariim. waan ku mahadsantihiin sidii fiican aad iisoo dhegeysateen. wassalaamu calaykum waraxmatullahi